السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا قاعد افتح فارح محمد ما أنتم حندوني أنا هلكن إذا كل وداقو ما صير أن كسمي أما أن أسمي فيسبوك ما سداسي وحيك أحد ليس أفر وحيالود وأفر تو فيسبوك وعن كل هاي أما مر والبعد فيسبوك كشو أما استراد فيسبوك إيج أتقو أركيسو ودتكونا إن بدن أي آد ولا وداقان فيسبوك maansada yaroo facebooka ka sameeyey afarta waxyaalood ama afarta kalmadood aan doonayo inaan maansadan yartaa maansa yaroo maadaama maansa badan aysan ahayn maansa dheerna aysan ahayn maansa yaroo kooban ah waxaan doonayaa inaan kula wadaago afar kalmadood oo afartuba afar aad iyo aad ugu badan facebooka markaad aragtidba oo mar walba aad gasho aad arkayso afarta kalmadood waxa weeyaan waa dhaliil dhalasho dhaldhalaal iyo dhiilo waa afarta uu caanka ku yahay facebook inaan afarta kalmadood ama afarta kalmadood aan idin soo sheegay aan maansadan yar ee kooban ka sameeyo waxa igu dhalisay maanta tacsida istaahil maxamuud oo ah muuse axmed gaani xaaskiisa oo aan halkan ka leeyahay ilaahay samri iimaan haynaga siiyo wax saaxiibkay marna walaalkay muuse axmed gaani oo isna aan leeyahay ilaahay samri iimaan saaxiib ha kaa siiyo adigiyo eheladii ay ka baxday iyo dhammaantiinba ilaahay samri iimaan haynaga siiyo baa igu kallifay maanta saaka anigoo soo toosay facebook galay ba waxaan ku arkay tacsidii gabadhii istaahil shalay arooska ahayd ee farxad iyo hambaliyadii reyntu ka socotay facebookeeda lasoo dhigayay oo maantana lasoo dhigay dhimashadeedii oo ah war aan lagu farxaynin ah inkastoo dee dad islaam aan nahay oo aan u joogno dhammaantiinba kulley dhimashada ayna wada sugayso oo wuxuu adduunye ay tahay oo dhimashiyo dee farxad iyo hambaliyo aroos intaba aad ku arkayso wuxuu waa adduunye lala yaabi maayo wuxuu waa adduunye lagu waari maayo baa igu dhalisay inaan maanta maansadan yar ee kooban aan sameeyo haddaba waxaan idin wadaagayaa maansada yar aan sameeyey bal awasho wanaagsan iyo dhegaysi habboon baan idin leeyahay waxaan yidhi afarley raggii tuuri jiray baan ka dhashay iyo gabayada waaweyne shalay iyo maanta isma laho waa kala shallay badan tahay macnihii markaan leeyahay horta dee maanse markaad bilaabayso ama gabay markaad tirinayso waxaa laga horreysiiyaa hordhac yar intaas waxay ahayd maansada hordhaceedii bay ahayd haddaba aan usii gudagalay waxaan ku bilaabayaa tan dhiiladaan ku bilaabayaa okay aan soo qaato waxaan ku bilaabayaa dhiilada kelmadda dhiilada baan ku bilaabayaa ugu horreysiinayaa shalay waxaad ii waday farxad aroos iyo reynreyn guri lagu dhisee maantana waxaad ii wadaa dhiiliya farxad dhimasho ka dambaysee hase ahaatee wuxuu waa adduunye waa loo joogaa dhimasho iyo farxad be taasi waxay ahayd dhiiladii bay ahayd haddana aan u gudbata ku xigta oo ah dhalashada tanna waa dhalashada oo tii dhalashada weeyaan waxayna odhanaysaa sida tan shalay waxaad ii waday dhalashiyo reynreyn farxad lagu dhisee maantana waxaad ii wadaa dhimashiyo war aan lagu farxaynin facebookow macnihii dee shalay dhalasho iyo waxaa lagu soo dhigayay hambalyo iyo qof kusoo biiray adduunkan cusub dunidan cusub kusoo biiray maantana waxaad ii wadaa dhimashadii qofkii shalay adduunkan cusub kusoo biiray waa facebook iyo ceebtaada maaha waa caadadaadee tan hadda aan ka hadlayno waa dhaldhalaalka waxayna odhanaysaa iyana sida tan shalay waxaad ii waday dhaldhalaal adduunyo iyo nimuu ilaahay ku manaystee maantana waxaad ii wadaa dhaliil iyo war aan lagu farxaynin facebookow macnihii shalay waxaad ii waday hebel baa xil loo doortay hebel baa kursi ku guulaystay hebel baa jaamacad ka qalan jebiyey hebel baa shaqo fiican helay hebel baa xilkaa helay maantana waxaad ii wadaa waxaad ka wadaa dhaliilo dee qofkii shalay sidaa lalahaayee lasoo dhigay wanaagiisii iyo farxaddiisa lasoo dhigayay baa maantana waxaa lasoo dhigayaa ood ii wadaa caydiisii xumaantiisii wixii markuu ama xilka ka dago oo kale ama shaqadii waayo oo kale ama xumaan yar uu sameeyo oo kale baad ii wadaa macni waa facebook oo dee ceebtiisa maaha waa caadadiisee tan hadda aan doonayana inaan idinla wadaago waxa weeyaan waa dhaliishii shalay waxaad ii waday waa inay hebelo rag waa ka ugu sarreeye maantana waxaad ii wadaa dhaliilo waxaad ii leedahay rag waa ka ugu liita facebookow macnihii shalay marka
lasoo dhigay qofka lasoo dhigiyay shalay waxaa oo dee macnaha xilka ku guuleystay ama kursi ku guuleystay ama qof wanaagsan ahaa oo xumaan yare ka dhacday, waxaa la lahaa shalay markuu wanaagsanaa waxaa la lahaa waa in hebelow oo reerkaasu kasoo jeedaayo rag waa ka ugu sarreeyo waa nin fiicano. maantana waxaad ileedahay ood ii wadaa facebookow waa rag ka ugu liito rag he waa ka ugu liito kii shalayba maaha dee facebookow ceebtaada maaha waa caadadaadii. marka taas marka waxay u kaliftay saan marka horeba idiin soo sheegay inaan maansada yare gaaban aan sameeyo afarleyda walaalkay marna saaxiibkay muuse axmed gaani oo marwadiisii shalay arooskii reereenkii farxadda kula jirtay maantana tacsi u taalo. waxaan leeyahay walaal ama saaxiib waxaan ku leeyahay ilaahay samri iimaan ha ka siiyo annaga iyo qaraabada iyo ehelka ka baxday reer maxamuudba waxaan leeyahay ilaahay samri iimaan dhammaantiin baa inaga siiyo. waxaaniga oo cabdifataax faarax maxameda waxaan kaga sii tegayaa sidaas iyo nabadgelyaha.